barnaamijka gungaar qaybtiisan waxaan diiradda ku saari doonaa sida howlgallada argagixisadu ay lafdhabar uga dhigtaan haweenka Soomaaliyeed ee ay marin habaabiyeen ama ay ku shaqaaleysiiyaan cabsigelinta iyo inay u soo maraan dadka kuwa ugu dhow. sidee ayay bishaaro ugu biirtay al-shabaab maxay saahayd shaqadeeda? waxaan ugu biiray odayga aab shaqeynay shaqadaas markaas ilaahay inaa nala shaqeysa rabnaa sidii saashi ay ku shaqeynay marka yani dhowr badan ay ko meesha bamba galiyeen la fishilay la arkay shaqadeedana waxay ahayd qarax iyo bistoolooyinka hubka sidoo kale hubka inaa qaado. qaabkee ayay u qaban jirtay hawlaha indhaynta iyo basaasnimada? banaanka shaqeynay gudaha xaafadda shaqeynay ninkaas saas dhuweeso uga wanaagtaas meeshaas ay tagtaal dhuweeso si aanan loo dareemin hawlaha ay argagixisada u hayso maxay gabaad uga dhigeen? waxaa ka shaqeynay sanduuqada ay furneedba oo meesha yani barnaamijkaas dukaanka oo milaamiga meesha waxa gelinayaan oo meesha ay ka fureen oo meeshan shaqadeeda inaa meel hubka qaado oo meesha ay ka idaan ageeyo oo sidii oo qof kale meeshaas joogo ay meeshaas joogeeda meeshana wax gelina rabnaa oo kale. maxaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu yaabka badnaa ee ay aragto intii ay argagixisada ku jirtay? nin masaajidka ku jiro oo salaad oo cisho maghrib dushiyay soo dhahayo inta cishaha ka dushinay la isuga oo laga diiday imaam oo ahay waa laga diiday masaajidka eradiisa lagu dilay. barnaamijkan oo dhammaystiran waxaad ka daawan doontaa shaashadaha warbaahinta qaranka habeenka Arbacada taariikhduna ay tahay 31 bisha Agoosto 2022 saacadu marka ay tahay 8 fiidnimo.